urur siyaasadeedka barwaaqo oo dhawaan lagaga dhawaaqay magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal ayaa maanta munaasabad ballaadhan oo taageero loogu muujinayo ururkaasi lagu qabtay hotel Haldoor ee magaalada Boorame. Munaasabadan oo kulmisay qaar ka mid ah qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Boorame oo ku midaysan midnimada iyo xoojinta ururka barwaaqo iyo sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen furista ururada Jamhuuriyadda Soomaaliland. qaar ka mid ah madax dhaqameedka odayaasha iyo dhalinyarada gobolka Awdal oo hadalka iska daba qaatay ayaa taageero u muujiyay urur siyaasadeedka barwaaqo waxayna tilmaameen taageeradiisuna maalin ayna ku taraynin oo maalin walba dad tira badan oo aqoonyahan iyo qaybaha bulshada isugu jira ay ku soo biirayaan weeyii meel fiican ku maraya insha Allah waxa ku soconaa wax weeye shirweynihii lagu aasaasayay bisha dambe loo qabsoon doonta urur barwaaqo waa taageersanahay wuxuu dhaxeeyaa laascaanood ilaa iyo lawyacad waxaan aad mar labaad u soo dhaweynayaa ururkan aasaaskiisu ka bilaabmay gobolka Awdal waxaan rajaynayaa inaad soo jiidan kartaan dhammaan gobolada Soomaaliland. Dr. Maxamed Cali Jaama waa nin karti iyo hufnaan intaba leh inuu ku hogaamiyo bulsho aad baan ugu kalsoonahay inuu bulsho hogaamin karo. barwaaqo ururkani ururkii horeeyay galbeed laga dhawaaqo oo aan anagu marta uqaal ahaan baa u soo ajiibnay waxaan kale u mahad celinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee furay ururada horaan ugu ballan qaaday inaan ururka ka furi doono gobolada galbeed lana geyn gaarsiin doono bari.